الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته waxaynu dhageysanaynaa aayadaha suuratu saala ku jira oo ka waramaya sifaadka ama tilmaamaha ay leeyihiin dadka wanaagsan ee muuminiinta ah taas waxayna xusuusinaysaa inaynu ka feejignaano tilmaamaha xun mar hadduu sifooyinkii wanaagsanaa Ilaahay ku amaanay muuminiinta waxaan markaa yara xusi lahaa naseexa ahaan ilaa 7 arrimood oo dhalinyaradeena baraha bulshada isticmaasha guud ahaan aad moodayna yara badiyeen baryahan dambe marka waynu kala talinaynaa idinkuna dhalinyar ahaan waa sii gaadhsiinaysa naseexaduna aad bay muhiim u tahay qofkana marka loo naseexeeyo ee tala waayeelnimo loo sheego waa inuu qaataa isagay dan u tahay diintiisa iyo dunyadiisaba tawaraysa waxa weeyaan inaan lagu dheeldheelin diinta Ilaahay ama qofku gaalnimada aanu ku dheeldheelin waxyaabaha dhab iyo dheeldheelba u dhaca ayay ka mid tahay gaalnimadu hadday tahay qowl iyo hadday tahay ficil tan qofku ficil gaalnimo hadduu sameeyo macatab iska xidho isagoo garanaya waa ku gaaloobaya hadduu ku hadlo hadalladii kufriga isagoo garanaya waa ku gaaloobaya قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إلهي آياته سي رسولك ساكو ديلديليس وقالوا ذينا وحبا عذر دارانين أبو لهي marka dhabiya dheeldheel way noqotaa gaalnimadu iska ilaaliya waxa kamida safaru biduni mahram qolo youtuber aho noocyo kala duwana oo israacaya kolba inantu safrayso inanku soo safrayo taasina wax dhaca weeye mana haboona inantii iyadoo keligeeda oo aan aabbo wadan hooyo wadanin ehel wadan inay socoto oo meel u safarto ama saaxiibtinimo iclaamka ah arintaasina dhibkeeda ay leedahay waxyaabo fasaada ka yimaada su'aal baan xusuustaa su'aalihii bay ku jirtay la soo qoray ninkaas wuxuu leeyahay inaan baan jeclaanay afuruun bay samaysaa ka waran diinan ajnabi ah oo da'yaraho afur ku samaynaysa teen karaaka soo bixi kara soomkiina khatar buu ku jira isaga laftiisu uu dareemaya gabadha ajnabiyada la isla gooni noqonayo marka taana waxaynu leenahay safarkaasi wuxuu u baahan yahay inuu mahram helo macna yeesho sharciga dhexdiisa ku banaan yahay waxa aynu baraarujin lahayn inaanay fudaysanin at-tashabbuh bil kufaar gaalada in la isu ageysiyo gaalada waxyaabo la isaga ageysinaya waxa kamida ee laga digayo wixii diintooda la xiriira ama caadooyinkooda ama ciidahooda ama labiskooda iyaga u gaara fil afraax wal ahzan aroosyada geeriyaha waxyaabaha noocaas oo kala ah ma dharka dadku wada leeyahay iyo labiska la wada leeyahay ma laakiin wixii iyaga u gaara inta aynu sheegnay in lagu la farxo ama lagu la murugoodo ama la isu ageysiyo وكدغي رسولكين صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم qofka qolo isu eegaysiya iyagu kamid yahay taasina way iska dhacdaa dhalinyarada gudaha joogiya kuwa dabadaba iyagoo ilbaxnimo moodaya iyagoo casri moodaya inay ku daydaan dhaqamada gaaladu ay maaragtay u leeyihiin gaar ama dadweynuhuba ama aroosyaduba way iska dhacdaa marka taana waxaynu leenahay in la iska ilaaliyo weeye waxa kamida at-tashabbuh bil jins al-akhar in jinsiga kale la isu eegaysiyo oo raguna ay dumarka isu eegaysiyaan oo xidhaan siliskii iyo weesaaqyadii iyo diracii iyo shuuliyadii inantina ay qaadato labiskii ragga malma waxaynu arkayn hablada ayaro cumaamadna isku taagay qamiisna xidhay marka wadaad baa meeshii la iska dhigaya taasina sax maaha dharka ragga u gaar ragga loo deynaya dharka dumarka u gaaran raggu dumarkay u deynaya waa nacdalay nabi wax sahlan ma nacdasha hadda aragtay nabiga wax nacdalay waa min al-kabaa'ir dambiyada waaweyn ayaa ay kamid tahay la'ana Allahu al-mutashabbihin min ar-rijali bin-nisaa wal-mutashabbihat min an-nisaa bir-rijal waliba libaasku si gaar ah riwaayinka qaarkood u sheegaya dharka ragga dumarka xidha Allah nacdalo dharka dumarka ragga xidha Allah nacdalo nacdash wax sahlan ma nabigi naxariista wax nacdalay ka war miyay kula sahlan marka taana waynu iska ilaalinayna way dhacdaa mararka qaarkood waxyaabo la wada leeyahay ama dhaxanta laga gashado
ama kabaha la wada gashado waa iska sahal kuwaas arrimaha la wada leeyahay maaha laakiin waa kuwa si gaara loo kala leeyahay qaarna ragga lagu yaqaano qaarna dumarka qofku waa inaanu saluugin siduu ilaahay u abuuray waa inaanu ciyaar bidin iyo wuxuu maaragtay ku maadaynayo ma galaan arrimahaas arrinta shanaadan xusila waxa weeyaan habeenkii markaan tukanayo waxaan arkaa dhalinyaro badan oo maasha Allah salaatuleelkii bay tukanayaan laakiin aad buu dhan xiran yahay oo labadii dhanba way muruxsan yihiin geedkan garawaaga oo kale dhakadiisu eegaato geedka garawaaga hoostana uu ka qoran yahay dushana uu ka ballaadhaa marka arrintaas maxay tahay dhaqanka noocaas ayaa leh waa arrin aad u dhib badan oo xun nabigeenuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu arkay in ilmo yaroo loo dhan xiiray dhabanada loo xiiray markaasaa wuxuu ihi ixliqu kullaha witrakuu kullah dee ama ka wada xiira tima ama u daaya u wada daaya in aad loo wada daayo oo loo feedho oo loo hagaajiyo qofkii timo dheero wanaagsan oo isku siman loo sameeyo ama laga wada muldhiyo labadaa miduun mooyaane in dhowr loo yeelo iyo in dhan la xiiro waa dhaqan shisheeye waa dhaqan shaydaan marka taana sidaasuu ugu tilmaamay ciddii uu ku arkay wanahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam can ilqazac xadiidkii saxiixa si cadda xadiidkaasi wuxuu nabigu ugu diiday qoordiidka jeega xiirka marka dhalinyarada waxaynu leenahay saas qurux maaha waa foolxumo marka adigiyo ilaahay caabudayo tukanaya haddaad wax nebi maxamed diiday ku tilmaaman tahay ajrigaagii iyo abaalkaagii baa yaraanaya salaadaadii way rifmaysaa rifad baa ku dhacayo qof caasiya cibaadadiisu waa naaqus way yaraanaysaa marka taana waynu ka digaynaa waxaa kale aynu ka digaynaa tarwiicu lmuslim branka bah la idhaah baa jiro oo waa aragteene lagu argagax geliyo dadka oo qofkii wuxuu ku odhanayaa intuu naftaba kaa saaro waan kugu ciyaarayay qaar baa qoryay soo qaateen qof meel iska marayay qabteen dabeetana way kaxeeyeen oo badday geeyeen madaxay ka xidheen oo waxay waa ku tooganaynaa ee shahaado mise waa tukan laba ragcadood dee naftiiba way ka baxday waxaa la isaga dhigaya in irhaab helay baa la isaga dhigay argagixisa heshay dabeetana mar dambe baa la yidhi waa lagugu ciyaarayay marka qadiyadda noocaas oo kale sharci ahaan waa xaaraan laba siyoodba xaaraan bay u tahay oo in qofka walaalka ee muslimka la argagax geliyaa waa xaaraan waqtigii rasuulka sala allahu calayh wasalam iyadoo safar lagu jiro ayuu nin asxaabii nin kale xadhi ka xaday carabtuna way iska ciyaaraan sideennan oo kale ayay isla ciyaaraan had iyo jeer xadhig buu ka xadayoo dee xadhigna waad garanaysaa marka safar lagu jiro kaalin buuxis weeye meel buu ku jiraa meel baa lagu xidhaa ninkii baa naftii qabatay mar dambuuna yidhi waa kugu ciyaaraya wuu soo saaray rasuulku sala allahu calayh wasalam wuu ka digaa wuxuu uhi laa yurawic axadukum akhaahu almuslim akhaahu lmuslim wain kaana akhaahu liabiihi wa ummih calaa macna alxadiid midkiiyuu walaalkii argagax gelin hadday doonaan isku aabiye hooyaba ha ahaadeen dhinaca labaaday xaaraam ka tahay waxa weeye beenta in lagu ciyaaro nebigu halaag buu u yabahay waylu liladii yuxadiثu fayakdib liyudxika bihi الnaas halaag baa u sugnaaday buu alla ha halaago qofka sheekaynaya ee dadka ka qoslinaya qosol un beentaa uga jeeda been ku maadaynaya alla ha halaaga buu nebigu sala allahu calayh wasalam labadaa dhinacba xaaraan bay ka taho qofkii uu ku dambaabayaa waxaa ku lifaaqan oo la socota hadduu ku dhintaba dadka qaarkood baa dhiikar leh macaan leh wadna xanuun leh marka aad ka nixiso hadday kow kaga tidhahdo magtiisaa lagu leeyahy bal ka waran 100 halaadoo ciyaar kugu soo raacay arrin adag weeye magtaasi waxay noqonaysaa shibhul camdiga mar magta la yidhaahdo waa geel culus oo 100 halaadahoo ama dee magtiisi un qofka rag iyo dumar mid kasta aadee waa alqatlu biاtakhwiifi watarwiic baa la yidhaha xagga fiqiga islaamiga qofkii argagixin lagu dilo marka taana iyadana wax lagu ciyaaro maahe waynu ka feejignaanaynaa waa dhaqan liitoo sheeye waxaa ugu dambayntii aan baraarujin lahaa alcaabta ama gaymiska waxaan la idhaahdo dhalinyaradii wuu la tegey wakti aada u badanna wuu ka qaaday oo iyadoo tahajudkii lagu jiro ayaa meelaha qaarkood gaymis iyo ciyaaray u furan yihin cibaadadii meeday salaatuleylkii mee raggana halkan uu ku tukanaya ilaahay baryaya rag kalena 5 saacadood 6 saacadood bay ciyaar ku jiraan oo caalam khiyaaliya ku noolyihin cimrigoodiina way calafsadeen oo way cuneen goor dambe ka cabanayaan talo waa maraad garan weydo iyo maraad gaari weydo marka daayarta fariimahaas aynu sheegaynaa toddobada ama baraha bulshada ha isticmaalaan ama waaqiciinabe waa ina uga naseexaysaan oo looga digaayo la tilmaamaa waman dalla calaa khayrin ka faacili rasuulkuna wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam qofka walaalkii khayr tusiya
khayrka isagoo sameeyay intuu sameeyay in laag busaguna leeyahay leelatul qadriga Allah ina waafajiyo amalkeen iyo cibaadadeena Allah inaga aqbalo cisiyo sharafna Allah ina siiyo dhaqanka xunna Allah inaga badbaadiyo ka wanaagsanna Allah inoo fududeeyo jannadana Allah inagu soo ururiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh